Donald Trump oo u diyaar garoobay siduu u weerari lahaa dalka Iran. USS Abraham Lincoln markab la yidhaahdo oo diyaaradaha xambaara ayaa isa soo taagay duleedka dalka Iran oo xambaarsan 70 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo helikobtaro. Sidoo kale dhankan ayaa laga baqayaa saldhigyada Carabta uu ku leeyahay in diyaarada uu kaga soo weeraro iyo gantaalaba dalka Iran, inkastoo wadamadaasi ay diideen in wadamadooda Iran laga weeraro. Guruub weeye maraakiibtani maaha hal markab. Markabkani waa markab dagaalamaya laakiin isaga waardiyayaal buu leeyahay 6 ilaa 8 ayay ka kooban yihiin. Maraakiibta yaryar aad aragtay hareerihiisa taagan waa waardiyayaal. Gantaalo ayay soo tuurayaan. Gantaalahaas markabka lagu soo rido ama diyaaradaha soo weerara ayay samada ku burburinayaan. Inkasta oo isaguba uu isdifaacayo, markabka yar dhinacan ka taagan laftiisu waxa uu sawiraa badda gudaheedana wuu sawiraa, wuuna dagaalamaa laftiisu oo sensors uu leeyahay. Goor hore wax ogaadaa markabkuna dhinaca ka ilaalinaya. Markab ka yar madow ee halka ka muuqda oo dagaalamaa wuuna diyaaradaha iyo gantaalaha markabka lagu soo tuurana samada ku burburiyaa. Sidoo kale nuclear buu xambaaraa. Marka waa group wada socda oo 6 ilaa 8 ah, ma aha wax sahlan. Had iyo goor markabka weyn baa la sheegaa, laakiin markabku marka uu meesha tago waa la iska og yahay in maraakiib badan oo waardiyeynaysan ay jirto. Sidoo kale gujisya badda hoosteeda maraya oo aan noo muuqano iyaga laftoodu dagaalami kara ama dagaalamaya ama markabkan ilaalinaya. Marka runtii ma sahlana. Iran lafteedu way dagaalamaysaa oo dagaalku ma sahlanaanayo. Donald Trump dagaalka wuu bilaabi karaa, laakiin dagaalku wuxuu ku dhamaanayo go'aankiisa male. Dagaalku wuu bilaabi karaa, laakiin dagaalku markuu socdo dhacdooyinka ku guda jiri doona halistoodu intay la eg tahay ma oga isagu. Dagaalku siduu ku dhamaan doonana ma oga, laakiin dagaalka go'aankiisa inuu bilaabo wuu bilaabi karaa. Cid kasta oo dagaal bilowdaana way bilaabi kartaa, laakiin siday ku dhamaanayso natiijada lama garan karo. Halis badan ayaa ka soo socda meesha. In kanaalkaas Hormuz xidhmo, in dagaalku sii ballaadho, in Iran awood aan la filayn oo weyn ka soo baxdo, in Israa'iil ku soo biirto, in wadamo kale ku soo biiraan, in mandaqaduba ay noqoto mandaqad iska ololeysa. Marka ninkan Donald Trump waa nin fudeed badan ka muuqdo. Waad ogtihiin inuu yiri Iceland baan qaadanaya, waad ogtihiin inuu yiri Canada ha ku soo biirto Mareykanka, waa inuu yiri Panama qaadanaya. Waad arkaysiin Soomaalidu suu aflagaadeynayay, fudeed badan baa ka muuqdo. Waa nin aan ku doono gaari kara. Walwal badan baa ka muuqdo. Hadalladu yirina hadallo waxa ka mid ahaa waxaan doonayay buu in Nobel Prize oo Peace lagu siiyo, nabadgelyada lagu siiyo Norway baan ka codsaday, waana la diiday buu yiri. Mar haddii Nobel Prize-kii oo Peace-ka lagu siin lahaa nabadgelyada la diiday, haddaba Nobel Prize waxaan qaadan doonaa colaad buu yiri. Nabadii baad diideen. Haddaad Nobel Prize siin lahaydeen, waxa weeye waan ilaalin lahaa abaalka la siiyo nabadeed baan noqon lahaa. Laakiin maadaama aad diideen, in colaadeed baan noqonayaa buu yiri. Nin waadna ogtihiin oo wadan weyn baan ahay, cid iska hortaagi kartaa ma jirto. Marka waa qalbi caruur maaragtay waa nin xoog leh oo aan caqli badnayn weeyaan. Inkasta oo dad badan oo Mareykan oo mas'uuliin ay walwal ka qabaan halista uu dalka Mareykanka gelinayo, laakiin saasay tahay haddana waa go'aanka isaga iska leh. Ninkaasi wuxuu hayaa furaha nuclear-ka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka marka la doorto waxaa loo dhiibaa furaha nuclear-ka dalkaas, isaga amarka bixinaya. Marka ninkan oo nuclear haysta haduu doono wuu oran karaa iska rida, macnaha waa inuu xanuunsan yahay loo maleynaya maskax ahaan. Walwal badan baa laga qabaa. Inkastoo isagu uu ku dadaalayo inuusan waxba qabin, taageerayaashiisuna ay leeyihiin waxba ma qabo, laakiin waxa weeye ninkan waa nin xanuunsanaya maskax ahaan. Waana nin da' ah oo laga yaabo inuu maaragtay khalkhal badan oo ilowshiinyo iyo walwal iyo waxyaabo aan loo joogin ay hayaan. Marka wallahi runtii adduunka waxaa la dareemayaa halis badan ninka cadhaysan ee bamka haysta.